أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله وبعد. إلهي باكم mahadsan ka gadaal waxaa ku mahadsan dadka muxsiniinta ah ee Allah subhanahu wa ta'ala waafajiyay inay intaan oo masaakiina oo qaxootiya oo agoona inay wax u dhiibaan. Allahi waafajiyay baa ku mahadsan. annagana insha Allah ta'ala waan uga mahad celinaynaa. islaamka oo dhanna sidaas ayuu bagaadinayaa. waxaana codsanaynaa wixii kaleeto oo muxsiniina Allah subhanahu wa ta'ala waafajiyay inay maartay ay sidaas oo kale ay u soo ihsaan falaan oo agoonta ay soo gaarsiiyaan. nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam ana wa kafilul yatiim ka haatayn fil janna. aniga iyo ka kafaala qaadaya agoonta jannada ayaa sidaa ku waxay kamid tahay meelihii ardayda dugsiga Qura dhigata ay deganaayeen. ruurtan waxay kamid qayb ka yihiin kaamka dadka degan ardayda gabdhahan sida dadkan oo kale. goobahan waxay kamid yihiin qayb kamid ah kaamka Qura ardayda meesha ay wax ka baranaysay ayay ka qayb ka tahay. dad soo barakacay oo fara badan ayaa halkan degana oo qaarkood ay agoon ahaayeen. agoontaas oo ka faa'iideysatay waxbarashadii ay ka heleen dugsiga Qura. kaamkan marka aad fiirisid dhul ahaan aad ayuu u ballaaran yahay. wuxuuna isugu jiraa dhul aad u weyn oo qaybo kala duwan ayay si kala duwan ayay dadku u degan yihiin. kaamkan wuxuu yahay kaam aad ballaaran. ardayduna waxa ay deganaayeen qolobo meeshii Ilaahay markaas u saqiray oo hadba way kala duwanaayeen. oo kaamka dhexdiisa ayay intooda badan deganaayeen oo noloshoodu waxay ahayd sida tan ka muuqata buushashkan ay degan yihiin iyo guryaha kuleeshku isku dhaxyaal. kaamka iyo kuleeshka markaasina ay yihiin kuwa markaas isku hal meel ay wada deganaayeen. goobtan dhismahan ka duwan kaamka waxa uu yahay goob markaasi ay ku kulmaan hoyga nasashada kaamka la yiraahdo oo ay markaasi hooyooyinka ay ku kulmaan ama ay ku shiraan. dhismahan laamyeeriga ah ee dugsiga Quraanka Kariimka ee tarbiyada Islaamka Qura ayaa la yiraahdaa. saddexda qol waxa ay saddexda qol ee lagu bilaabay aan iraahday midba mar inkastoo la dhisay haddana saddexda qol ee muuqata waxa ay yihiin saddexda qol ee waxbarashada ardayda caruurta agoonta ee dugsiga Quraanka Kariimka ee tarbiyada Islaamka Qura loo yaqaano ay wax ku baranayeen muddo 2 sano oo xiriir ah. wiilal iyo gabdhaba macallimiinna ay lahaayeen. marka haddana loo wado mid kale inuu guuraan sida muuqaalka hore aad ka arkayseen gabdhaha iyo wiilashana ay halkan ka tageen. marka xaaladda marka ay fiirisid dhismaha laamyeeriga ah ee hadda ay wax ku baran jireen ardaydii ee ka guurtay meesha kuleejka iyo midka aad arki doontaan inkastoo ay kala duwan yihiin. quraanka ka maraysaa Ibrahim ma maraysaa adiga ma akhri kartaa hay noo akhri. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. iminkana waxaa la bilaabayaa qaybinta raashinka loogu talagalay ardayda agoonta ee dugsiga Quraanka Kariimka tarbiyada Islaamka ee Qura dhigata. waxaad u jeedaan Maxamed Xuseen Cadaawe oo Sheekh Maxamed Xuseen Cadaawe
oo 10 kiilo oo bariisa iyo 10 kiilo oo sokor ah siinaya ardayda waxay ka faa'iideysanayaan raashinkan la siiyay waa kuwan aad u jeedaan raashinkii ayay qaateen ardayda intii isku qoys ahna waa la isku siinayaa intii kala qoysna waa la siinayaa wiilal iyo gabdhaba waa la siinayaa arday isla dhalatay waa loo yeeray waad u jeedaan iminkana wiilkan iyo gabadhan aad arkaysaan waa isla dhasheen gabadha yartaa kale soo socotaba waa la dhasheen waa qaateen waa qoyskaas qoys ayaa loo siinayaa arday ma aha qoys kasta waxaa la siinayaa 10 kiilo oo bur ah iyo 10 kiilo oo sokor ah waa qoys sida Sheekh Maxamed Xuseen Cadaawi sheegay ardayga hadduu kaligiis qoys ka socdo iyo haddii ardaydu 3 ka socdaanba waa la isla siinayaa arday kasta oo la siina waxa uu tagayaa xaggaas waalidkiis hooyadiis ayaa sugaysa bacdama agoon yihiin هذا ماشي كذا عدد كذا حواي أول دكتور واحد جانيسي بقول يا أفرتن يشرح واحد جانيسي ظروف فجر أوجد وهذا ديارة سديت البارق طلباتن يلا بقى نروح هذا ديارة أنت هذا ديارة أو مني مركان الحين وبورسوني كذا وطا أو كلش كساك وصعت دي لازم لبض الصنع مرك المها أقونتها اللي هي هواية كمدة ودور عروض كايستا هذا غيب كمدة ما قال مدي الله وجيران المها أيها هذا دور كلمة أو macna waxay loo soo jeedi doontaa si ay u aragto ilmaha ayay bixina kala tabadal xalim bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay ayaa mahad iskale in soo gaarsiiyay walaalaheena meesha labada sano inagu ogaay oo kamid ah ururka umul qura iskuulintiisi waatan aan maanta halkaan wada joogno muhiimadeedana ay noo tahay farxad weyn oo maalin qiimo badan ay noo tahay taas arageena ilaahay mahadi asay u sugnaatay allahana ku dhooro agoontii ay noo qaadeen ay noo geeyeen college oo aan ku haynay meeshan dugsiga umul qura ay wax nooga baranayeen haddana ay noo joogaan kuwa kale oo yar aan noo gelin qaadista kuleejada waxaan ka codsanaynaa ururka umul qura inta noo dhiman inay micnaha dugsigii sidii hadda u socday kii kale ay noogu wadaan dugsiga umul qura mahadiha ka gaarto waana u mahad celinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horeyso waxay mahad iyo galad u sugnaatay allaha koonkana keensaday noo qadaray inaanu halkaan aynu ku wada kulanno walaalayaalo sidaad ogaalba u leedihiin waxaynu ahayn dad ilaa iyo muddo maanta wax soo wada waday arrintan ilaahay dartiisa ugu istaagay ilaahay dartiis aqoon idinma aanan lahayn dad idin yaqaana ma aanan ahayn sida aad ogtihiinba maanta waddanka sida uu yahay ama xawaalaheeda waad la socotaan qabiil idinkuma aanan dooran ninkan wuu nala dhashay intaasoo sano dadkaas aan arrintooda wax ka soo wadnay u malayn maayo hal cunug aan ka garanayo ama se hal gabar oo ilmaha hooyadooda aan ka aqaano inay jiraan waxa aan intaas u suubinayna waxay ahayd ilaahay dartiisa inaan dadkaas masaakiinta aan ugu istaagno ugu kaalmayno inta ilaahay uu na karsiiyey alxamdulillaah ilaahay waa noo nicmeeyey awoodowna siiyey wuuna karsiiyey waxaana ka rajaynaynaa in dhammaystirkeeda ilaa iyo intuu allana karsiiyo amase ilaa ay ka gaaraan ayaga kuwa naga dhaxla inay noqdaan oo berri ka maalin aqoonta u istaagaan inaan maanta ayaga ku tarbiyeyno ayagii ay noqdaan berri ka maalin kuwa u damqada amase u xanuunsada berritooda cunuga yatiinka ah oo asaga ka yaraan doona inaan helno yacni ayaga jiilka ka dambeeya dad u noogu istaagi doono inay noo soo baxaan in wax wanaagsan nooga soo baxaan ilaahay haddii uu noo qadaro annagana maanta aan tarbiyad wanaagsan ula imaano inaan ilaahay dartiisa ugu adeegno inaan waalidka haddii aad tihiin dadkaani annaga iska dhaafay idinkay ammaano cawad idinku yihiin annagana ammaano intaas ka sii 2 jibaar ama ka 10 jibaaran ayay nagu yihiin inta awooddanada ay dhan tahay
ama se ka badanba wax allaale iyo waxaan awood aan leenahay aqoon ha noqoto maaliyad ha noqoto macruufa ha noqoto wax allaale waxaan awoodnay inaanan ka hafran doonin haddii ilaahay raalli ka noqdo inaad ammaanadaasi aad ogaataan sida ay cawada idinku yihiin ka badan annaga inay nagu yihiin inaa intaa cawada ka walwalaysaan ka badan annaga ka walwalow hayno because adi hooyaa tahay haddii hortaada adoo joogo cunugaaga uu dhib ku dhaco amase uu wax noqdo amase uu wax kuu bara waayo waa ku qanacsan tahay because intaa awoodda waa u suubis laakiin aniga uga waxaan siinahay dad oo mas-uuliyaddaasi ay ku tahay yacni subxaan allah wax la qiyaasi kara aysan ahayn sometimes wadnahayguu la gariiraa micnaha mas-uuliyadda waxa la yidhaahdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam asaga oo la dardaarmayo nin asxaabiya wuxuu dhahay laba arrimoodba ka fogow oo ha ku dhowaanin inaad xukun qabato ha qabanin oo ka fogow inaad xoolo yatiin qabatidna ka fogow baa la dhahay ma fahamteen marka yatiintaas masaakiinta ah ilaahay dartiisa ugu khidmaynayno annagoo ilaahay uga raadinayno inaan janno ku galno inuu dhib naga soo gaaro amase aan danuub nooga timaado waxa waaye subxaan allah ilaahay ayaan ka magangelaynaa ma fahamteen idinkana waxaa idinkaga baahannahay inaad noogu soo ducaysaan in ilaahay noo fududeeyo ilaahay arrimahooda noo saqiro ayaga awlaad wanaagsan ilaahay nooga dhigo ilaahay kuwa wax barta ilaahay nooga dhigo berri ka maalin idinka keliya ma ka rabna anfacaad berri ummadoo dhan inay anfacaan inay idinka anfacaan naftooda inay anfacaan waayo waxaa maanta ka raadinoo haynaa marka insha allahu waa u wada joogi doonaa waxaan jecelnahay haddii ilaahay yidhaahdo maanta inaan meeshatan aan ka wareegno oo ilaa iyo muddadaas aan soo wadnay aanu ku wareegi doono meeshii loogu talagalay oo ahayd kuleejka inay ku wareegaan balse awooddu noo diidan tahay in aan samayno inaan ilmihii meesha wada joogeen oo dhan aan qaadno maadaama kafaaladda weli nagu yar tahay balse sidii aan awalba ugu dadaalayna waa u taagnaan doonaa waana wadi doonaa codsiga maamada ay soo sheegtana oo ahayd dugsiga yowsa sii baabi'in maadaama carruur ka mida laga tegaayo oo meesha sii joogi doonaan insha allahu intii awoodeenna ay dhantaa ku soo dadaalaynaa dugsiga sidiisa inuu u noolaado ilmihii ay macnaha ay dugsigii ay sii dhigtaan waa ku soo dadaalaynaa allaha weynna ha naloo baryo aan wada joogno waxaad tihiin dad maaragtay oo maaragtay la dulmay dulanka qofka dulman ilaahay dacwadiisa wuu aqbalaa masaakiin waaye ilmo agoonaa haysataan marka ilaahay aan wada barino in alla noo saqiro oo annakan ilaahay noo fududeeyo addoommada allana idiin soo addoobiyo هذه فضل الله واي إله أنت سميه ما أنا محا أنا سمين كرنا ما قلبي جينا أساق سوريده أساق نقول أود أن نقول إلهامية أو سميه يا وحنا نيره مركا إن شاء الله دعويك أدعي ستاني كمتها إلهي هاللوجو ما حد عرشوا أساق ما هذا صغناته مركا وحنا جعلنا هو يمكن هذانا النفعان أتصور أركتان إلمي هي ماشى لجين دونا ماشى يكون هولان دونا سيد أي تهاي إن معناها هالكاسنا أن إذا كوسو بدون النظام ودوكسي يسكي على دونا ay kuleejada yeelan doonto inay ilmuhu macnaha ay maamulkiisa nidaam uu ku yeelan doono cunuga ku soo darsoomi kara cunuga ka bixi kara kullay nidaam kale aan idiin soo gudbi doonaa haddii ilaahay raalli oo ka noqdo waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayran وأنا سألت ملائكة مساعدة إن شاء الله بلا تعرف سنيدا رجعشاش لكن هذا كلش كي يكحرونيان إن كستو أرديدو أي مركن إن كستو أرديدو أيهين مركن ترى كمية أنت وحكي لي جرتي وعندما قار كمية على الشيء إن أي يران وجهرين أنت أي مالتي نسيب ويشان المركاسي أي نقدان أرديدو يقول شيء كلش كه وحكي برد دونته يوم القرى هدي الله ودي له طلابه أرديدا الدكسية قرآن كريم كتربية الإسلام كوم القرى
waxa ay wax ka baranayeen muddo 2 sannadood ah. 2 sannadood ay ahayd halka maanta ay ka guurayaan oo ay wax ku baran jireen quraanka kariimka inkana waxay u guuriyaan college-ka gargarow ka muuqda oo ah mid heer sare ah ayaa maamulkii mas'uuliyiinta kala duwan ee mulqura maanta halkan ay ku sugan yihiin iyadoo markaasi ay sii sagootinayaan mas'uuliyiintii maamulka dugsiga quraanka kariimka ee tarbiyadda islaamka mulqura ee halkan iyadoo halkan ay joogaan munaasabadan mas'uuliyiinta cusub ee college-ka wiilal iyo gabdhaba waa diyaar iminka gordhow gaadiidka ayaa la saarayaa waxaa dhinaca kale ka muuqanaya hooyooyinka carruurtan oo iyagu sii sagootinaya carruurtooda oo ku biiraya kolleejkan oo markaasi masaafo dhowr kilomitir isku jira halka maanta ay degeen kaamka qulqul iyo halka uu ku yaallo kolleejka cusub oo kala fog ay sii sagootinayaan gordhowna la baxayaan insha allahu tacaala يا عبد الرحمن sida ay muuqataba waxaa soo dhaqaaqay gabdhihii ugu horeeyay ee college-ka cusub u guurayay waxaa la saarayaa gaadiid loogu talagalay iyo gabdhaha dhismahanina oo aad u ballaaran waxaad arki doontaan dhowaan halkan waa ganjeelkii waxaynu gudo geli doonaa gudaha iyadoo ardayda mar dhaweyd ay timid lala diyaarinayo waxaa loogu talagalay 3 arday qof miiskiiba iyo kursiga ku fadhiistaan halkan waqti ayaa la gashtaa ardayga koowaad ardayga labaad ardayga saddexaad qaabkaas ayaa lagu sameeyey waxaa yaala 1 2 3 4 1 2 3 4 4 min 3 4 min 3 waa 12 ardayda markii wareegi karta qolkiiba waxaana markaas kadib eegi doonaa inta qole yihiin ama warbixintaas sida lagu samayn doono waa kan sidaad ka muuqda ardaydan maanta ay soo degeen xilli nasasho ayay ku jiraan inkastoo salaada duhur qaarkood ay isku diyaarinayaan qaarkood ay xoogaa sii nasanayo ay saxdeen waxaa ka mid ardaygan oo kale waa jiiftay kan sidoo kale qaabkan marka ay 2 daqiiqo u jiifaan midkan yarka ah hoos yaa la dejiyey kan garana kale ayaa la siixiyey marka qaab kale oo kale ayay u jiiftaan ardayda sariirahooda labada ah qol kastana waxaa uu seexanaya ilaa iyo 8 wiil ayaa qolkan jiifanaysa qol kastana 8 qofood ayaa seexanaysa oo laba sariir ay u kala sarreeyaan ardaydu waxaa u bilaabanaysa markan nolol cusub oo ka duwan tii hore ay markii hore ku noolaayeen intii aysan soo qaxin iyo intii ay soo qaxanba kadib sidaad arkayseen muuqaalka hore waxaa ka muuqday kaamamka iyo xaafadaha ay deganaayeen ardaydan oo kaamka qulqul gudihiisa dugsiga ugu dhex yaallay hadda noloshan waa nolol ka duwan tii hore waxay ku jiifaan sariiro kala sarreeya marka hore kuma aysan seexan jirin qaarkood joodareesha dhulka u yaaleen qaarkoodna sariiraha u yaalaan laakiin qaabka noloshan oo kale ah oo ay hooyadood ka soo tageen oo ay la nool yihiin ama la noolaan doonaan arday iyaga la mid ah ama aqoon kale ah ma aysan soo marin maamada college-ka waaye oo ardaydan oo wiilkan ayay hooyadiis tahay noloshan cusub kolley way la qabsan doonaan ardaydu marka 8 qof ee meeshan joogta ayaa isku asxaab noqonaysa waxay noqonayaan in noloshooda muddo ay wada noolaan doonaan laba ayay u degan yihiin ardaygan buskudkiisu iska cunayaa noloshiisa cusub hooyadiisa buskud usoo dhiibtay ilaahay ku barakeeyo kan arday kale saaxiibadiis ayuu la joogaa waxaan filayaa in noloshooda wax iska bedeli doonto saacad bilow hadalkaaga halkan waa kushiinkii waxa lagu karinayay kulaashka loogu karinayay ardayda agoonta ah ee umul qura
qaybtan fadhiga ah waa qaybta wax ku cuni lahaayeen qaarkood gaar ahaan waxaan filayaa inay gabdhaha ay fariisan doonaan waa kushinka kulaajka inta waxaa lagu diyaarinayaa raashinkii kuba socoo maanta ay cuni lahaayeen iyadoo maanta ay tahay maalintii koowaad ay soo xaroodaan bariiska ayaa halkan ka muuqda saliidii cabitaankii oo ay cabbi lahaayeen ardayda bariiska khudaartiisoo loo karinayo waana maalintii koowaad ee loo bilaabay nolosha cusub ee ardayda kolleejka umul qura oo ardayda soomaaliyeed ee agoonta ah waxayna ahaayeen ardaydaasi kuwii marka hore baad ogeedeen heerka waxbarasho dugsiga oo dhayli ay u imaan jireen haddana waa kolleej jiifkooda cuntadooda noloshooda cusub ay markaasi la hara qaadayaan maanta oo taariikhdu ay tahay 10 bisha 8 ee 2010 waxaana bilaabanaysa nolosha cusub ardayda wiilal iyo gabdhaba u bilaabanaysa qaybta gabdhaha sidoo kale waan tegi doonaa haddii aad ilaahay qaybtan cusub aad u jeedaan dhismaha jiifka iyo waxbarashada isku leh inkastoo jiingad gaar ay ku go'an tahay waxaa degan gabdhaha ayaa degan waa ka gaar dhismaha kale ayay qayb dhexdooda taalaa haddana waxay kaga duwan tahay muuqaalka guud sida kuwan oo kale ganjaalka marka laga soo maro iskama banaana waddada kuma habaysna iyagu waddada way ka xiran tahay gudahaan u gelaynaa insha allah qaybihii gabdhaha markan waxbarashadii jiifkii qaybtan waa jiifkii iyo waxbarashadii iskuulka ay maadiga wax ku baran lahaayeen dugsigiina xaggaas waa tuu noogu yaallay markaa gudaha haddaan usoo galno qaybtan waxaa sida oo kale 8 gabdhood ayaa qol kasta deganaan doona waxbarashadu sideed ahaan doontaa fasalada waxbarashadu waxay la mid yihiin kuwii hore aynu soo aragnay oo ardaydu markan sida ay ugu baray gabdhaha qaybta gabdhaha ayaa loogu talagalay waxaana yaala afar ilaa 8 kuraas iyo miisas ayaa yaala qaybta waxbarashada ah qaybta jiifka waa soo guduhu ugu yaallaa iyaga halka wiilasha bannaanka ugu yaallay musqushooda gabdhaha bannaanka ayuu gudaha ugu yaallaa ألا إلى الله تصير الأمور حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من